Breaking news, the Kenyan government has banned British troops from exercising in Kenya. haddii hore loo maqri jiray AMISOM ayaa dhibaataysan dad Soomaaliyeed ama dad shacab ah maadaama ay yihiin ciidan Afrika ka tirsan ama macnaha isheega Afrika laga soo ururiyo Soomaaliya la geeyay haddii la maqli jiray gabdhay kufsadeen dad bay baabi'iyeen dad bay toogteen dad bay xasuuqeen shacab haddii ay maqli jirteen arintaas ayaa Kenya ka dhacday ciidamada Britishka ama UK ee leedahay maadaama sida ognahay Kenya ay gumeystay wadanka Ingiriiska ayaa waxay dileen dad shacab ah oo sidoo kalena ciidamo isku dhaf ah Kenya iyo Ingiriiska oo isla tababaranayay maadaama sidoo kale Kenya ciidankeeda ee ciidankan ku dhex jireen ee tababar siin jireen ayagana ay ka qaadan jireen ee isku dhex milmeen sidoo kale systemka dawladnimada Kenya hadda ay ku shaqeyso intooda badan loo gacan galiyay oo systemkii Britain ka shaqeynayay uu yahay sida caadiga markii laga tago hadda waxyaalo yar yar oo laga badbedelay qaabeyshanka dawladda provinciyo iyo waliba sidoo kale in degmooyin district ahaan districtyadii la hoos geeyay county la sameeyay 47 county la sameeyay wax yar laga badbedelay laakiin systemka intiisa badan archiveska ayuu u yeelaa ama meelaha la dhigo waxyaabaha sooyaalka ah waxaana ognahay Kenya in protectorate ay si dadban ilaa iyo hadda u tahay balse hadda ciidamada Britishka ah ee Kenya ka howlgali jiray ayaa laga baangareeyay ama laga rookeeyay inay dib dambe Kenya u sii joogaan sabab la xiriiro in dadka shacabka ahaa ay bilaabeen inay ku shiish bartaan bal horta muuqaalka cadeynta wax yar la daawo. Breaking news, the Kenyan government has banned British troops from exercising in Kenya. Now, Kenya has a very long history since colonial days of having British military train in Kenya, and this has caused a lot of animosity towards the soldiers stationed in Kenya, particularly after the murder of a Kenyan young mother who had a 6-month-old baby. And she was murdered, and actually the murderer was actually named by one of the soldiers when they returned to the UK. But the Kenyan MPs have accused the British Army in Kenya of behaving with impunity because there has been very many complaints about their behavior, especially bar brawls and stuff like that. And as well as they have faced legal cases. There was a case that was actually brought by the Maasai because many children find unexploded devices and they play with them and with very dire consequences. So the MPs have accused the army of behaving with impunity and they have been banned from exercising in Kenya. waxyaabihii Soomaalida ay ku sameeyeen AMISOM sidoo kale waxaan ognahay in waxyaabaha aan la ogeyn iyo kuwa la ogyahay kuwa aan la ogeyn kiisaska aan la ogeyn oo Soomaalida lagu baabi'iyo maalin kasta iskaga duqayaan dadka shacabka marka ayaga waxyaalo yar loo geysto ama qolooyinka afka duwan ayaga qarxiyaan in Soomaalida ku soo jeedsadaan aan ognahay haddana inta macnaha ay sheegay sidoo kale la ogeyn ayaa ka sii badan oo macnaha ay sheegay qolooyinkan AMISOMta ah ama ciidamada Afrika ka jooga sababta sidoo kalena qaraxyada ugu waaweyn oo xamar ay uga dhacaan ama ay uga dhici jireen hadda kama dhacaan ayaa ahayd in sidoo kalena ay si joogitaankooda ay muujiyaan lacagihii maadaama hadda aysan wax saameyn sidoo kale aysan lahayn qolooyinkii lacagihii la siin jiray oo Mareykanka uu bixin jiray ama uu ku taaguleyn jiray iyo food stampki iyo wixii oo dhan sidoo kale Mareykanka uu joojiyay uu dhahay waxa anaga interest noogu jirto Donald Trump uu dhahay oo wadankeena ayaa u baahan lacagahaasina uu isticmaalayo qolooyinkan ICE inuu ku fangareeyo inuu koofiyad yar tasiyo 3.3 bilyan oo doolarka Mareykanka uu siiyo ama uu ku fangareeyo uu isticmaalayo marka hadda wax saameeyna ma walaha Soomaaliya way iska joogan mushaar ma qaataan ba haday qaataanna wixii ay qaadan jireen wax u dhowtoona ma qaataan marka arintan ayaa similarity ah ama lamid ah isla waxa ay ka wadaan Soomaaliya qolooyinkan madowga ah ee wadamada Afrika ee kala duwan ka kala socdo Kenya ayaa waxay bilaabeen inay ka cabato ciidamada Ingiriiska sida aan ognahayna waxyaabahan oo kale way dhacaan markasta wax yar oo Kenya hal mar ka dhacay way wax saado loo dhawaaqay Soomaaliya daily ay uga dhacdaa cid ka hadasha male cid wax ka qabatana male marka ciidamadan ayaa waxa amar lagu siiyay oo la tababaran jiray ama tababaran jiray ciidamada Kenya inay wadanka iskaga baxaan sabab la xiriiro in hal qof ama hal maamo ay dileen
ayada oo waliba si ku talagal ah aysan in u dileen in kale xataa aan la cadeyneynin ayaa sidoo kale la soo sheegaya. Marka ciidamadan waxaa macnaha ay sheegay waxyaabo badan oo la qarinayo ayaa jiro. Ciidamada Kenya waxaa ognahay inay isku dhaf yihiin ciidamada Ingiriiska oo tababar ay siiyaan, wax walba ay siiyaan. Xitaa madaxda Kenya markay isku dhacdo waxay heshiisiyaan Britishka sababtoo Kenya inay burburto ma rabaan. Kenya waxaa la aaminsan yahay sidoo kale in partially ay tahay wadan macnaha kor laga maamulo sida caadiga ah ee UK maadaama ay tahay gumeystahoodii uu yahay in ay korka ka eegato xitaa madaxweynayaasha ama doorashooyinka markii la iskhilaafo ayada oo la og yahay wax walba in ay qaldan yihiin oo codbixinta sidii la rabay aysan u dhicin ayaa waxaa la sameeyaa in la heshiisiyo in handshake gacmaha la isku saaro madaxda wadankan Kenya in sidoo kalena waxyaabaha danta ah laga shaqeeyo balse aan lagu sii mashquulin. Waana sababta Kenya ilaa iyo hadda 5 madaxweyne kaliya ay u soo mareen oo intaas oo 60 iyo dhowrka sano ay jirtay ku kasta uu iska jecleystay inuu iska haysto uu iska maamulo cidina aysan sidoo kale ka hadlin. Waana sida Afrika ay u badan tahay. wadamada Afrika intooda badan waxay aad u jecel yihiin madaxtinimada iska haystaan haddana wixii ahaa waxay ku leeyihiin waa dimuqraadiyad waa macnaha ishagay republic waa dimuqraadiyad waa macnaha ishagay kala dambeyn waa doorasho xaq ah ayay ku dhahayaan wax ka jira malaha. Inta badan wadamada Afrika doorashooyinka ay qabsadaan waa doorasho isku caano shubid ah waana midda hadda uu rabo Donald Trump sidoo kale in uu sameeyo. Marka Kenya wadamada sidoo kale waxay ka mid tahay ugu macnaha ishagay horumarsan markii la fiiriyo dhinaca horumarka Afrika. sababtaas ay ku gaartayna waxa weeye arinta ay ku gaartay waxa weeye in Kenya ay stable tahay inta badan 100% wax ka badan ay sidoo kale stable tahay. wadamada ugu deganaanshiyaha badan Afrika sidoo kalena madaxda Mareykanka Europe meelaha markay ka imaanayaan si xurriyad leh sidoo kale ay ku dhaxlugeyn karaan ku dhax ordi karaan. madaxweynaha Faransiiska waxa arkayna maalin hore shay laamiyada Nairobi ama wadooyinka waaweyn highwayada ah ku ordahaya isaga iyo team kale oo sidoo kale uu sameystay. Arrimahaas ayaa sidoo kale Kenya waxay ka dhigayaan waana dadka Kenya dad macnaha intooda badan waxay u badan yihiin dad wax bartay. Hadda arintan xitaa lama ogaan lahayn sababtoo ah waxa laga yaabaa in sir hoose ay ahayd dawladda Britain iyo Kenya isku dhaceen ciidamadana sidaas loo qaaday ama macnaha ishay looga saaray wadanka maadaama qaladkaas ay geysteen balse in xitaa la ogaado Soomaaliya waxyaabahan qaar xitaa lama ogaan karo wadamada qaar lama ogaan karo Afrikada kale in hal qof oo waxaas lagu sameeyay la ogaado aad ay u adag tahay markii ay ka badbadiyaan waa la ogaan karaa laakiin kiisaskan oo kale sidoo kale in loo kuurgalo dad independent ah xataa shacab caadi ah investigative journalist ana ahayn ama baaritaano dad inay sameeyaan ana u diyaarsaneen in ay sidoo kale ahayn dad iska shacab caadi sida qoftaan oo kale in siraha noocaas ay soo gudbiyaan ayaa waxay ku tusaysaa sidoo kale ilbaxnimada waxbarashada heerkeeda ay gaarsiisan tahay Soomaalida in ay yeelato dad noocaas oo sidaas sameeyana aad ay u adag tahay sababtoo dhalinyartii Soomaaliyeed ayaa xitaa caadi qaatayaal noqotay oo dadkii shacabka ahaa dhibaateynaayo intay dhahaan waa macnaha ishay waxaan u sameynaynaa waxa loo yaqaano yabo waxaan guriyaan u dhisaynaa dadka baahan dadka macnaha ishay duruufaha abaaraha lacagihii markii dadka qurbaha joogay ee soo diraan ayaga jeebka gashanayo qaarna macnaha ku tahriibayaan qaar guriyo ku dhisanayaan oo wax yar un ka gaarsiinayo oo dhowr bilood ay ku noolaadaan ama bil ama labo iyo guri loo kireeyay kaliya laga gaarsiiyo dadka masaakiinta. Fadlan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro wax fikirkaada aan la wadaag oo arrimahan kaaga aadan qalka laag noo sar haddii aanu cusub tahay nagu soo biir waan mahadsantahay.